بسم الله الرحمن الرحيم ومنيا عبد الله ودين سلامة يا الصومال وين ميل والبا جوجتان waxaan salaamayaa hooyo walba oo Soomaali ku hadasha iyo aabo walba oo Soomaali ku hadla iyo ayeey walba oo Soomaali ku hadasha sidaad ogtiinba kacdoonkeena waa laal mukhadaraad aan ka soo horjeesano mukhadaraadka aan iska celino maanta farabaan ayuu lagu hayaa runtii markuu loo hadlo Munyaa Cabdullah mar walba wax walba inii soo jeediyaa laakiin waxa loo baahan yahay inaad qaadato adiga aad ku waantoodo ayaamahan waxa social media ka socdo waxyaalo aad iyo aad aan macnaha xogaa ku farxad gelinaya oo ah Soomaaliya in qaadka laga joojiyay maanta runtii qaadka dad baa waxay u aaminsan yihiin in uusan drugs ahayn in uu yahay shay macnaha lagu raaxaysto kaliya taas waxa kaaga daliila hadduu maanta qaadku uu fiican yahay oo macnaha uu qaad wax tarayo hadduu yahay ama wax uu qabanayo ama uusan drugs ahaynba waxa laga isticmaal lahaa dalkan Yurub dalka hadda anaga aan joogno ee Yurub ayaa laga isticmaal lahaa lagama mamnuuceen lama dhahen waa mamnuuc marka hadda dawladda Soomaaliya runtii qaadka hala ay joojisay horta waa arin fiican waana arin xun markii runtii loo baxo taasna aniga waxaan dareemayaa in Munyaa Cabdullah warkiisa uu gaaray ilaa heerka dawladda Soomaaliya inuu gaaray kacdoonkeyga inuu markaan uu sii guuleystay uu gaaray ilaa prime ministerka ilaa iyo madaxweynaha ilaa iyo baarlamaanka inuu hadalkeyga inuu gaaray ayaanba dareemaya aniga waayo kacdoonka markaan soo qaaday waxaan arkay in maanta Soomaaliya ay ka soo horjeesatay qaadkii laakiin ma ahan inay qaadka ay ka bilowdo Soomaaliya hadda waxay wadaa sheeka ah oo mahmaah carab ayaa jirto oo ah يمسك النملة ويفوت الفيل وحو قبنايا يمسك النملة وحو قبنايا إيش شندو قبنايا وحو أفوتنايا مرودية يمسك النملة ويفوت الفيل تاس مسور تقليسو ما أنفعه وحقلي قلاي ماهنا وحالو باهي هاي ما أنت حمر وحان جوغي شنبلو دان جوغ وحا أركي منطقنتا إن لغو قدايو درايقسكي ماشي محل إيش إن حمرويني إن عادي لو قدايو عادي سيد بريسكي وكله عادي لو قدايو askarigii kii laba aliflaa uu taagan yahay meesha waxba uusan ka qaban karin oo lagu dhahay duqahay maxarta maxaa u baahan tahay marka waa ayaan daro marka waa inay koob ka soo bilaabaan jaranjarooyinka dadka bahdalayo inay ka soo bilaabaan ay ku yimaadaan markaas qaadka ay ku soo gabagabeeyaan waa macna ay geliyaan waxa kale oo loo baahnaa waxaan baaq u sii jeedinayaa dawladda Soomaaliyeed laano fiiri ninkan miskiinka ah ama hooyada miskiinka ah waxaad ka mamnuucday qaadkii aad ka mamnuucday qaadkii waxay ku biilaysay ilmo aad u aad u fara badan ilmo agooma ah ilmo masaakiin ah ilmo oo masaakiin ah ilmo agoon ah ay macnaha qaadkii ay lagu biilay okay waa inaad u keentaa change tabdiil inaad u keentaa bedelkii markaad shay qof aad ka qaadato waa inaad shay aad siisaa Allah subhanahu wa ta'ala sidaas ayuu noogu suubiyaa markuu wax ka qaato wax ka fiican uu kugu bedelaa marka sidaas oo kale inaad noqotaan inaad fahantaan in aad dadkan habrahan masaakiinta ah in aad waxooda aad ka qaadeen ee aad ka xayirteen fiiri qaadka Soomaaliya maanta wuu soo degayaa qof baa ku nool kii drawalka ah baawrku soo qaaday wuu ku nool yahay kii xamaaliga ah ee saaray wuu ku nool yahay kii aeroboortka fadhi wuu ku nool yahay diyaaradii wixii way ku nooshahay ku soo wad xamrooyin ku keen dajintii wixii waxa ku nool ciyaal yiro masaakiin ah ayaa ku sii nool oo wixii meeshii oo haday in habriyi markay meesha soo fadhiistaan qaybta tarintii dad baa qaabilsan qaybtii warantii dad baa qaabilsan qaybtii firaashkii dad baa qaabilsan waa silsilad xiran oo taxan oo lagu wada nool yahay oo ummad Soomaaliyeed ay ku wada nooshahay marka hadii dhoon oo ummadaas oo dhan ay ka cabaysay hadii aad jarto waxa loo baahan yahay inaad u keento badiil inaad wixii aad u keento badiil maadaama dawladda ay sheeganaysid xukuumadda culiyadii aad tahay golihii sare wixii dhan madaxdii waaweynaa aad tihiin waxa loo baahan yahay tabdiil inaad u keento badiil hakintaas aad hakinaysa hataa 3 ma hataa 4 ma haday tahay hataa waxay kugu noqonaysaa jariima aad galaysid inaad u keento badiil inaad aad dhahdo cuniga miskiinka ay ku bahdilnaa ay ku duloobay qaadka maanta ay ka dhigtay ee aaminay nafsadiisa siiyay in uu hadduu xamar qaad soo degin in uusan noolaan karin ayuu iska dhaadhiciyay adiga waxa lagu baahan yahay marka inaad fikirkaas aad ka saarto sida aniga dad badan aaga saaro haddii drugs ka isticmaalaan inay ku raaxaysan karaan iyo hadduusan isticmaalin inuusan noolaan karin adiga waa inaad ka saartaa fikirdaas waa inaad dhahdaa saan ma ahan tan ayaan kugu bedelay markaad diidayo hawlo badanaa jirto maal geli ganacsi kale u suubi
cunuga yar bar farsamo uu ku shaqaysto hadday cilmi tahay hadday wax walba tahay hadday tahay ii sheeg allahumma musta'an farsamo gacan hadday tahay wax walba jir waxyaalo fara badan ugu bedeli kartaa yani dawladda waan ogahay dawladda maanta Soomaaliya in ay aad u tabardaran tahay waan ogsoonahay in aad u tabardaran tahay ayada macnaha iska qabsi iyo yani dadka qaar kood aysan helaynin mushaharka aysan baahaynin laakiin maadaama arinta ku dhaqaaqday waxa loo baahnaa inaad bedelkeeda aad keento marka insha Allah aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama qaadkaas la joojiyo waxaan arkay hooyo Soomaaliyeed oo dhehayso 30 sano qaad gaday yani xilligii kacaanka siyaad bara ilaa ay hadda qaad gadayso waxay tiri waan ugu faraxsanahay tiri joojintaas la joojiyay waayo waxaan dib ahayn ma aanan ka dheefi jirin waa runteeda yani kama aysan dheefi jirin waxaan dib ahayn dheef ma aysan ku haysan jirin ma ka dheefi jirin dib lay ku haysan marka waxay tiri maadaama la joojiyay alxamdulillah ilaahan ana wax kale yani hanugu bedelo waa iimaankina isgelisaa loo baahan yahay qofku waa inuu iimaan yeeshtaa يعني وإن الله أمنتا وإن رسولك أمنتا وإن الأنبياء أمنتا وحول بيكوسوا الدجلان والله وحول بيكوسوا أنا قاد وعنوني جري لكن الحمد لله هذا الحمد لله يعني وإيجام ذوي أنا وحن أملنا سيدان قاد وعنو قف صومالي إنه سنجرنا أملنا وينكي كلي وحن هل سنة أو كاملة هل سنة أو كاملة يعني هل كسنة والله بيتهم بلود بشي وحكسوا قاد صدن يعني صدق كل في والله بيتمن وصدق بقول إلى حدا معلومات صدق بقول إلى حدا معلومات أيه هل مال أمني فينين هل مال أمني فينين مركو طبعا صدق بقول إلى حدا معلومات وحاكو جرتا مروجو وحاكو جرتا جيريا وسوق لي كرتو وحاكو جرتا فرحات وحاكو جرتا مال أديك سيسيات هاي وحيال بدني ككومنت صدق بقول إلى حدا هل كسنة يعني نينكي وحن هل سنة كامل سوق بلاوي كل دمي مركز سنقاد قعنت وتاجي هل سنة كامل هير وحن جاري مركان إسبيتال كمشي عن كشقينا فرمشيجا دركي يعني أي جوجان بوكانك أي جوجان ونينك تلفون يصدروا ويرادو دكتوري أنا جوا بحربا عيو موقات كاجا عن صعررو عن سحرو فرمشيجا عن سحرو بوكانك أي تاجين باوركي عن قاط عن عررو عن تجو سوقي قاتك كبرك عن تجو وحيج عن صوميسو كدب عن إمادو كدب هوش عن كلامه فيري هويا أيام بش دكتور أبوه جوجو أبا جوجو والد باجوجو عروري را joogto oo daawadi u baahan aniga waxaan ka doorbiday balwadi aan ka doorbiday biri inuu faa'iido lahayn balwadi aan ka doorbidaya habeenkii oo dhan waxaan fikiray waxaan dhisay waxyaalo aan loo baahneen iyo yani min jifyaan dhisay habeenkii oo aan habeenaya subaxin wax lagu ma jeedo male qaas waa hal bacad lagu lisay dhibaatooyin fara badan oo ku keenaya hadday tahay ilkahaaga hadday tahay tafkiir badan madaxaaga inuu ku waalaab ku dhawaanay bas ku fikirinayo maskaxdaada yani inuu ku waalo wax yani maanta halaha qaad aan galiyay hadii maanta aan xisaabo waxaan noqon lahaa Soomaali ninka ugu taajirsan yani maalinkii kaligeeda waxaan ku qayli jiray aan gelin lahayn $30 markaan qaadka ay gelisid laazim waxa u baantaa sharaabkii waxa u baantaa telefoon kaar ah ku shootid waxa u baantaa nacnacleen kale waxa u baantaa cabitaankii waxa u baantaa shiishadii macasalkii waxa u baantaa waxyaalo yani $20 oo ku korfinay $50 ku gubaysaa meesha waxaan naqanaysaa deeqsina waan naqanay marka marqaanta deeqsiya naqanaysaa kii ku yimaado ku dhaw walaalo wax ii dhib hoo kay ii dhib hoo kay yani خلاص maalinki $100 waa gubay waxyaalo fara badan oo ku qaban kartaa $100 umad fara badan asiirta marka insha Allah hadalkaygu soo socda intaas aan ku soo gabagabeynaa sheekadeeda waqtiga iga dhacay hadda waqtigii waa aad u dhacsan yahay hadda waxaan filayaa waa 3 saac oo habeenimo waaye Soomaaliya hadda waa xilli dambe u tahay insha Allah arintan guulay ku dhamaanaysaa arintan qaadka guulay ku dhamaanaysaa insha Allah aniga kamana soo horjeedo qaadka joojintiisa mana yani mana jecli in qaadka la joojiyo mana jecliyay in qaadka yani la cuno labada dhinac waa aaminsanaa hadii la joojiyo bedelkiisa hala keen ayaan leeyahay yani waanadeedu waxay tahay hadii qaadka aad joojisay bedelkiisa u keen dadka Soomaalida masaakiinta yani dhibaataysan hadii ay socdaanna insha Allah bedelkiisa insha Allah way keen doontaa waa la hormarin doonaa wadankan uu fiicnaan doonaa wabillahi tawfiiq qara in rajayna Soomaali weyn meel walba aad joogtaan waa Munya Abdullah waa special video ninkii arko videogan ha share gareeyo wabillahi tawfiiq qara in rajayna meel walba aad joogtiin wabillahi tawfiiq